بسم الله الرحمن الرحيم sida aad la socotaan waxaan halkan waxaan salaamayaa golayaasha dawladda xukuumadda golaha baarlamaanka hay'adaha dawliga ah ee jooga saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaanu maanta isugu nimi arrin runtii alxamdulilah sina barwaaqo ah waxyeelana ay ku dhex jirto saad la socotaan gobolkaas gardafuw specially iyo barigaasi muddo abaar buu ahaa sida igu maqalaa ilaa 2 sano roob ma helin alxamdulilah waxaa roob baa helay roobab wanaagsan baa helay waxaa la yidhi nimco waliba nuqsaan leh waa wax lagu farxo laakiin misna waxyeeladeeda ayay wadataa nimcadu khasaarooyin baa ka dhacay halkaas waddooyinkii oo awalba jilicsanaa ayaa roobabkaasi waxyeeleeyeen sida aad la socotaan oo tiifiyada iyo meelaha aad ku aragteen way xidhmeen gobolkaasina waa go'doon specially gobollo kale oo wax gaadheen waa jiraan laakiin maanta halka kan waxaanu isu soo taagnay sida ay u kala daran yihiin meelana waxyeelaa gaadhgaadhay meelna waa go'doon oo maanta gudo iyo dibad bad iyo berri labaduba waa ka go'doonsan yihiin waayo waxaan hadda ogaaday reer barigu baddii yarayd ay odhan jireen ma ku tibixsiinaana iyada haddii roob helo oo qudheeda dabayle waxay laguma tibixsiin karo marka saad la socotaan waa go'doon waxaanu qaylo dhalaan baanu halkan u diraynaa dawladda shacabka hay-adaha deeqaha bixiya kuwa masiibooyinka waxaanu halkan isoo taagnay inaan gurmad degdega loo gurmado oo laysu taago oo hawsha iyada ah sidii reer puntland awalba yeeli jireen for example aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxa aad hadda specially dawladda iyo shacabka iyo culimmaduba ay ku maqan yihiin hadda deeqdii gurmadka ahayd ay qaadeen oo walaalahood reer beledweyne oo runtii ay naga dhexayso isu gurmad dheeraada oo dadka kale aynu isaga dhownahay waayo wax badan baa inaga dhexeeya waa lagu maqan yahay waxaanu aad iyo aad qaylo dheer ugu qaylinaynaa culimmadii khayr allaha siiyo specially gacanta fududaa oo aan odhan karo shacabka iyo dawladda iyo reer puntlandba culimmadaasi way asturaan runtii dadaal dheeraad oo ay sameeyeen ayay deeqdii laxaadka lahayd ee aada maqlayseen ay halkaa u gaadhsiiyeen waxaan u baahannahay iyaga iyo ciddii kale la shaqaynka iyo dawladduba inay arrinkaas iyada ah sidii loogu kacay si lamid ah ay gudahana uga kacdo loogu kaco waxaanu dawladdu waxay samaysay guddi bay u magacowday oo la yidhaaho guddida gurmadka degdega ah waa heer wasiiro xildhibaano iyo hay-adaha kale iyo culimaba marka halkanaan waa idinka sheegi doonaa waxaa guddidaa waxaa ka mid ah wasaaradda howlaha guud wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda arrimaha gudaha xildhibaano oo ka mid yahay xildhibaan muuse oo u qaabilsan howlaha guud iyo arrimahaas gobolkana ka soo jeeda loo gurmanayo xildhibaan cabdullaahi yuusuf sheekh fu'aad oo runtii aan runtii ammaan u dirayo iyo bogaadinba isaga iyo mashaayikhdiisa kale oo runtii aad iyo sheekh tigey isagu wax walba ah maxaynu ku tilmaanaa waa sheekh alkulli isagu ha waa sheekh alkulli waa cirka soo dhaca meel walba waa taaganya marka guddida iyada ah iyo madaxtooyada agaasimaha guud oo maxay tahay xidhiidhinta iyo dabagalka iyo la socodka isna u qaabilsan xagga madaxtooyada aad iyo aad baad umahadsantiin waxaan rajaynaynaa runtii guddidaasaad maantaba soo saari doonta oo magacyadooda la soo saari doono ayaa
tallaabooyinka la qaadayo si ay u kala horeeyaan iyo waxa la qabanayo soo saari doona. waxaanu jecel lahay inaanay waqti naga qaadan. waxaanu jecel lahay in gurmadkii lagu aqoon jiray reer puntland ay u gurmadaan lana bilaabo maantaba hadday assessment tahay iyo hadday wax gaadhsiin tahayba. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.